بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad saaxiibayaal waa saaxiibkan Balawi. Muuqaalkan waxaad ku baran doontaa VLOOKUP rules. Heerarka ay leedahay VLOOKUP. Waxaan ka baran doonaa saddex rule ay leedahay VLOOKUP. Ruleka koowaad waxa uu leeyahay lookup value should be unique in the column. VLOOKUP marka waxaa laga rabaa inay noqoto unique oo gooni inay ahaato aan soo laabin la raba. Tusaale halkan fiiri waxa ku qoran mobile, halkan waxa ku qoran mobile. halkan waxa ku qoran mobile marka duplicate ay noqoto daatada ama soo laabato waxay xisaabisaa midka koowaad kaliya hadii kale error ayaa keenaysa. Tusaale VLOOKUP marka la qorayo formulaheeda markasta formula la qorayo equal laga bilaabay equal kadib VLOOKUP taabaneysay waxa raadinayso lookup value-ga ayaa dooraneysay comma kadib table of array table-ka aad rabto in aad raadiso ayaa dooraneysay saan oo kale kadib comma booska aad rabto in laga reedo column of index booska farada raba kadibna waxaan rabaa exact match marata ama approximate match exact match ayaa rabaa. Mobile hadda waxa uu gadan yahay 26.95 kana fiiri kan waa haway 26 kan ayaa saxan yahay kan koowaad ayaa sheegay 26.95 kan fiiri walaal zid ma sheegin kan fiiri ma sheegin. Waxaan fiilayaa inaad fahantay heerka koowaad waa inaad unique ah hataa la raba value-ga. heerka labaad waa kana waxa uu leeyahay you can find the value from left to right. lookup value marka shaqada ay xisaabayso waxay xogta ay soo raadinayso waxay ka bilaabaysaa from left bidix ka bilaabaysaa to right midig ayaa u soconaysa halkan ka raadinaysa hadii kuways halkan hadii kuways dhankaas kale ayaa u soconaysa from left to right waxay xisaabaysaa iyada from left to right not from right to left. waxaan filayaa inaad fahantay rulkaas. rulka saddexaad ee u dambeeyo waxa uu leeyahay lookup value should be belong to the first column of the table of array. lookup value marka wax xisaabayso xisaabtu waxay ka bilaabaysaa column-ka koowaad ee aad dooratay ayaa ka bilaabaysaa. tusaale fiiri waxaan rabaa inaan xisaabiyo jadwalkaana rabaa inaan xisaabiyo product code ayaa rabaa inaan xisaabiyo hadda waxaad baratay sida top product sida loo xisaabiyo product code kaana rabaa inaan xisaabiyo sida xisaabiya. tusaale fiiri koodkan koowaad ay soo koobeynaya control C ayaa dhahay meeshaana keenaya control V ayaa dhahay halkaan saa uu leeyahay not equal ayaa leeyahay error ayaa halkaas ka imaanayo. marka xisaabiis marka waxaa laga rabaa waa inuu first column u ahaada. see loo qoraya marka formula loo qorayo hore soo baratay equal VLOOKUP kadib table-ka oo waxa raadinayso value-ga dooraneysay comma table of array table-ka dhan had moodo dooranayso waxaad dooranaysaa waxaad rabto inaad raadiso ayaa ka bilaabaysaa halkaan ayaa koowiya first column-ka ayaa ka bilaabaysaa waa dooratay comma kadib column of index inta rabtaa in laga raadiyo column-ka saddexaad ayaa raba comma 0 ayaan raba ama true ama false waxa rabto qor waa kaasa top product-ga hadda waxa uu leeyahay kan koowaad 26 halgadaya kan oo kale asigna fiiri control C leeyahay product code-kan igu bedel halkan control V waa kaasa 28.9 halgadaya waa kaasa. rulka saddexaad waxa uu leeyahay lookup value should be belong to the first column of the table of array. waxaan filayaa inaad fahantay saddexdan qodob ee ruleskan oo soo hadalnay VLOOKUP. halkaasi ayaan ugu baxnay VLOOKUP. waxaan filayaa inaad fahantay casharkan fadlan la wadaaga xisaabtaada. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Thanks for watching and see you next time.